hore siyaasiyiinta amba madaxda Afrikaanku caam ahaan baan uga hadlay horta siyaasiga ninka la yiraahdo waa hogaamiye dadka wuxuu ku hogaamiyaa inuu dadkiisa meel u horseedo uu ka saaro jahliga cilmigu bedelo inuu dhakhtar iyo dawo iyo caafimaad ugu dadaalo inuu horumariyo dhaqaale u sameeyo rabka lagu godaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo qoyskiisa horta waa ayaan daro waa nasiib daro madaxweyne mudane madaxweyne Muuse Biixi Cabdi adigoo madaxweynaha hayagiya ummaddu faraha badan ay kugu dooratay cod aqlabiyada oo kugu aamineen naftooda iyo maalkooda waxay ku doorteen inay kugu seexdaan oo nabadgeliyo ku seexdaan oo aad dar yeesho laakiin in kolba meel lagaaga boori kaaso oo kolba xaflad lagu qabto oo dad isku yimaadaan cabanaya mudane madaxweyne Muuse Biixi Cabdi adigoo madaxweynihii Soomaaliland taa lagama filay way sadacdo walaalkii wax la qarin karaya ma kulkaas waliba maxaabisnimo loo qabsaday waxaan leeyahay taasi tii laga sugayay ma ninbaa yiri riyaha niman xil kaga tuumayay laga sawaabudi riya badan buu ari badan buu lahaa mid baa boorreed oo kili weynay taasaad caruurta jiilaalka u qaliyo xaydhay ku deeqin bi suran jiray jiilaalkii baa soo galay abaarto tiibo qalay xaydhu awsuun baa ka soo booday xaydh ba malay waxaan leeyahay riyaha riban xaydh kaga tuumayay laga sawaabudi horta adiga laga filay ninka hormuudkii ee sanamaha ee madaxdii kamid aha maalintuu qabsado kidaas oo kale xaydtaasi xaydh lagaga tuumayo adiga laga sugay inta halkaasina waxay taagantay reer Biixi Cabdi Muuse Biixi Cabdi waa daro waa kugu nasiib daro in sida lagu hadlayaa waxaan ku leenahay madaxweyne adduunyadu waxa ma tarto adduunyadu qiimo ma laha magaca wax tara waxaan ku leenahay magaca waan kula qabno kula wadaagnaa ciidana waan kula wadaagnaa halka marka laga bilaabay la xarshin buu caayaan nin wariba hamay cunin waxba ma oga dhul ma haysato waa ayaan daro magacaagi baa ku yaala wax kale ugu macaayo dariiqan marba wala haysta ki caynkan baahati sidan baati waxa weyn waa ayaan daro aan ku leenahay madaxweyne dadkani waa ergu waa dadkaagi waa masaakiin ayadoo aanu ku sharifayno magac ka tago ka horqaad dadka bacadka la waray ee maalin walba oo barooranaya ee mid kale balookiisi la dul dajinayo waxaanu ku leenahay waxa ku magac roon adigoo intaad magac ka tagto ka dul qaado waxa dhacaya inaad magac ka tagto inta dambe inaad daba qabatayso dadkan la isxaarayo ila leeyahay qoyskii madaxweynaha magac kuma aha carig suguna dawlad ma hogaamiyo dawladnimo ma noqoto adigoo dadka ku carigsanayn inaad maqasho ummadda oo wixii laga dalbaday inaad yeesho hogaanku waa sida magacna uga tagto dadka iyo dalkaba wassalaamu calaykum waraxmatullaahi erga islaam baan wahay Muuse Soomaali waxa tiraa ilaahay saddex qallo anaga farta iyo isha iyo carabka ninka saddexdaas ku fakadaan horta ciribada Muuse aniga 10 kun oo Soomaaliland ayaa la iga xaqal qaaday kay soo fariisanaado soo balooday ma dhacay Muuse dib u dhacay anna waan xanaaqo wuxuu ku dhuftaa maalin walba sad ku maalay qaaday 500 war Muuse war niyo ilaahay ka baq erga dadkaaga baan nahay ehelkaaga baan nahay walaalada baan nahay kuwii ku dhibanayaan nahay ilaaha ku abuuray ka baq magac ka tag sharafta wanaagsan madaxweynihii dalka tahay dadkoo dhan mas'uul ka tahay dhulkaad mas'uul ka tahay shimbirahaad mas'uul ka tahay ilaaha ku abuuray ka yaab oo dadka la weerteenay sidii waraabaha yaa waraabaha weerteenay laga dhiganay ninka qadarka ka kaxay meesha eela raas aan adeerkay iyo santeegaba askari kale hayimaado waxa weeye Muuse walaal wixii magacaaga dilaya ee sharaftaada dilaya ee jiritaankaaga dilaya awlaadaada dhaxalka u noqonaya kada assalaamu calaykum hore waxaan uga soo bilaabayaa 250 kiiba Muuse isbarnaa aniga isku arday baan nahay shaqada u horeysay leeyihiin ee go'jano aniga isaga ayaa dhagaxaan dhignay dhagaxaanta waa la xayrayay halkii la dib jirka loolan jiray hantidu lahaa
taasoonu annagu wada qabanonu u qabannay bay ahayd kolkii la soo dhaafay ee odayga bustaale la yidhaaha ee ahaa foormaanka manashuubeeda ayaa siiyey oo iddadii qabay